السلام عليكم مقعه aadan cabdullaahi cabdulle aadan ciidan ka tirsantahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed magaalada joogta magaalada Baraawe ay Baraawe ka waran magaalada Baraawe aad iyo aad u fiicantahay nabadgelyada aad iyo aad u fiicantahay dadka Soomaalida degan aad iyo aad ay wanaagsan waxyaabo hadda magaalada nabadgelyada caadi waa leedahay aad iyo aad dadka Baraawe deganaan jiray oo dibadaha jooga maxaa faraysan waxaan u furayaa in ay magaaladooda ay ku soo laabtaan ay magaaladooda amaankooda ay sugin maxay dareemaysaa isbeddelka dawladda ku sameysay ciidamada iyo aad iyo aad ay u fiicantahay in ciidanka mushaarka loo dalacsiiyo aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo ciidamada madaxda maxaa faraysaa aad iyo aad madaxweynaha iyo madaxda waxaan u sheegaynaa aad iyo aad bay u dadaaleen insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa annagana dalka inaan difacno kastoo aan ahay booliiska Soomaaliyeed ilaalinta shacabka nafta iyo maalka aan ahay ما شاء الله maxaa leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadda jooga in ciidamada qortaan in ay ciidamada ay qortaan ee wadankooda difaacaan sidaas baan u sheegayaa waa maasantahay magacaada Fuad Abdirashiid Abdixkiin Abdirashiid maxaa ka tirsantahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meeqa sano jirtaa waxaan jiraa 26 sano ما شاء الله ka waran magaalada Baraawe magaalada Baraawe caafimaadkeeda iyo amnigeeda iyo waxa nolosheeda aad lagu wacni wax dhibaato kuma qabno wax waxa dhibaato ciidanka dawladda ka taliyo ciidanka dawladda haysto amnigeeda waa nabad si nabadaan ku shaqeynaa si nabadaan ku soo kacnaa ciidankan meeqa sano oo hadda magaalada gacanta ku haya 5 sano iyo 4 bilood soo aragtaa dawladda federaalka hogaamiye madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali inay mushaarka ciidamada u dareen dib habeen u sameeyeen guul waana u arkaa guul waana midaasi mid ka badan oo aan ka sugnaa waxaan dhaxanta u taaganahay waa taas midaasi mid ka badan oo aan ka sugnaa dadka Soomaaliyeed maxaa faraysaa oo Baraawe degan waxaan farayaa inay amniga iyo nabadda nala ilaalishaan xasilooni iyo nabadooni ay macnaha kuwa dibadda joogana waxaan leeyahay inay dalka Soomaaliya yimaadaan oo dalkii wax wada ka shaqeeyaan oo dib dalkooda u dhistaan sababtoo dalka askale inaan dib u dhistaan ku qasban maxaa ciidamada hadda isbeddel ka muuqda maxaa leedahay isbeddel weyn ka muuqdo waxa weeye inaan hore u sii socnaan jecelahay ilaa waxa weeye meelo badan oo noo dhiman inaan gaarno si fiican u gaarno insha Allah madaxweynaha iyo wasaaraha iyo dawladda maxaa faraysaa waxaan farayaa dadaal intaas in ka badan inaan ka sugayno waxaan dhaxanta u jiifnaa inay tahay ayaga macnaha inaan waxa weeye dhaxanta u jiifno ayagu hadday wax la dadaalaan anaguna waa aan dadaalayna ma sha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa waxaan leeyahay ayagu kuwana waxa weeye qaarna wax barto qaarna waxa weeye dalkii hadii dalkan anaga askale ina wax u qaban anaga muhiimadeena dalkan waxa wada qaban waxaan leeyahay farmaajo iyo khayrna waxaan leeyahay guru ما شاء الله ciidankana kor hal mar walba hal lugal Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato